Assalaamu calaykum kusoo dhawaada YouTube-ka Maareeye Channel. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa filim American horror ah. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa gabar lagu magacaabo Tara. Kaligeeda waxay ku sugan tahay guriga, waxayna fariimo u diraysaa saaxiibteeda Amber. Daqiiqado yar kadib waxaa la soo wacayaa taleefanka Leelenka, laakiin Tara waxay diidaysaa inay qabato taleefanka sababtoo ah ma garanayso nambarka soo wacaya taleefanka. Taleefanka mar kale ayaa la soo wacayaa, balse markan waa ay ka qabanaysaa taleefanka. Nin ayaa soo wacay waxa uuna ku oranayaa magaceegu waa Charlie, wuxuuna sheeganayaa inuu yahay saaxiibka hooyadeed. Isaga waxa uu kula hadlayaa ereyo cabsi leh, wuxuuna weydiinayaa in ay cabsatay iyo in kale. Wuxuu u sheegayaa in uu dilay dad badan, wuxuuna ku oranayaa waxaan dilay inagoo game ciyaarayna. Intaa kadib Tara ayuu ku casuumayaa si ay uga soo qayb gasho gameka, laakiin iyadoo aanan u jawaabin ayay ka cabsatay waxa ayna ku daminaysaa taleefanka. Si degdeg ah ay isaga jartay markii ay heshay fariin uga timid Amber, waxayna ka dalbanaysaa inay ka qabato taleefanka Leelenka. Tara ayaa aad u yaabtay sababtoo ah waxay la yaabaysaa ninka ka soo wacaya taleefanka Leelenka. Tara waxay qoraal u dirtay Amber si ay u ogaato qofka soo wacaya in ay tahay iyada iyo in kale. Amber waxay ku oranaysaa maya anigu ma ihi qofka. Tara waxay ogaanaysaa inay la hadlaysay qof dilaa ah. Dilaagii ayaa mar kale soo wacay waxa uuna la hadlayaa Tara. Dilaagii ayaa dhowr su'aalo ka weydiinaya gameka, waxa uuna ku oranayaa waa maxay sababta aad ula hadlayso Amber iyadoo aanan doonayn in ay ka jawaabto su'aalihiisa, balse dhowr su'aalood ay si toos ah uga jawaabaysaa. Ugu dambeynna waxa ay diidaysaa inay ka jawaabto su'aashii ugu dambeysay. Taasina waxay keenaysaa in dilaagii uu ugu hanjabo inuu dili doono saaxiibteeda Amber. Tara waxay u soo baxaysaa dhanka iyo gurigii Amber, waxayna soo qaadanaysaa mindi si ay u badbaadiso saaxiibadeeda. Isla markii ay albaabka furto waxaa ka soo horbaxaya dilaagii soo wacayay iyada, isagoo xiran maaska laga cabsanayo. Tara waa ay la dagaalaysaa, ugu dambeynna waxa uu caloosha kaga sarayaa mindidii uu watay. Si kastaba ha ahaatee ugu dambeyn Tara waxay ku guuleysanaysaa inay xirto albaabada oo idil, isla markaana waxay wacaysaa booliiska iyadoo u sheegaysa waxa dhacaya. Si kastaba ha ahaatee dilaagii ayaa mar kale soo galaya guriga, wuxuu bilaabay inuu weeraro iyada dhowr jeer ayuuna mindida ku duraya, balse waa ay haraantinaysaa isagoo dhulka ku jiidaya iyada. Isla markiiba booliiskii ayaa soo gaaray albaabka weyn. Dhanka kale waxaynu arkaynaa Tara walaasheeda ka weyn, magaceeduna waxaa la yiraahdaa Sam. Waxay ka shaqaysaa meel ka yara baxsan magaalada, waxayna la nooshahay saaxiibkeeda lagu magacaabo Rigi. Iyadoo la hadlaysa saaxiibkeed isla markiiba waxaa fariin u soo diraysa walaasheeda Tara. Sidoo kale Tara saaxiibkeeda Wes ayaa u sheegaya waxyaabihii ku dhacay Tara. Dhanka kale Tara asxaabteeda waxay ka hadlayaan waxyaabihii ku dhacay iyada. Asxaabteedii waxaa sidoo kale su'aalo weydiinaysa Julia oo ah askariyad. Kadib Tara saaxiibkeedii hore ee lagu magacaabo Vince iyo ardaydii kale dhammaantooda waxay soo aadayaan si ay u soo booqdaan Tara, waxayna soo wada aadayaan hospitaalka. Dhanka kale Sam iyo Rigi waxay go'aansanayaan in ay booqdaan Tara. Iyagoo gaari wada saaran, Rigi waxa uu bilaabayaa inuu ka sheekeeyo dilaaga. Kadib wuxuu sheegayaa in filim uu ku arkay maaskigii uu watay ninkii soo weeraray Tara. Dadkuna waxa ay ku doodayaan ninka, waxa ayna doonayaan in la dilo ninkaasi. Waxay wataan waji qarsoon, lamana ogaan karo waqtiga ay soo weerarayaan dadka. Daqiiqado badan kadib waxay imanayaan hospitaalka. Tarana aad ay ugu farxaysaa inay aragto iyaga. Intaa kadib Tara waxay Sam baraysaa asxaabteeda, magacyadoodana waa Chad, Mandy, Wes iyo Amber. Way baraysaa dhammaantooda si ay u noqdaan saaxiibo. In yar kadib dhammaan asxaabteedii waa ay baxayaan, keliyana waxaa haraysa Tara walaasheeda. Si kadisa iyada waxay bilaabaysaa inay oyso, waxay u muujinaysaa cabsida ay ka qabto dilaaga, waxayna ka cabsi qabtaa in mar kale uu soo weeraro iyada. Tara asxaabteeda waxay wada joogaan baarka. Vince ayaa imanaya waxauna asxaabtii ka dalbanaya inay isku raacaan cashada. Chad waa uu xanaaqayaa markii uu hadalkan maqlo, waxauna u soo jeesanayaa Vince. Markii milkiilada baarka ay ogaato in ay dagaalamayaan, waxay ku amraysaa in labadooda ay banaanka u baxaan. Intaa kadib Vince waxa uu go'aansanayaa inuu banaanka aado, laakiin si lama filaan ah gaari ayaa hortiisa lagu joojiyay. Wuxuu u soo dhawaanayaa gaarigii waxa uuna weynayaa qofkii ku hordamiyay gaariga. Isla markiiba dilaagii ayaa gadaal kaga imanaya waxa uuna qoorta ka gelinayaa mindidii uu watay. Dhanka kale waxaynu arkaynaa Sam oo ku jirta suuliga hospitaalka, waxayna liqaysaa kaniiniyo ay gacanta ku wadatay. Waxay miraayada ka dhex arkaysaa aabaheeda, waxaana lagu magacaabaa Billy Loomis. Isla markiiba dilaagii ayaa gadaal ka soo weeraraya, waa ay la dagaalamaysaa dilaagii. Si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii waa ay ka soo cararaysaa, waxayna soo gaaraysaa askartii ku sugnayd hospitaalka. Askarigii ayaa soo aaday qolkii uu ku jiray dilaaga, balse dilaagii waa uu ka baxay qolka oo waa uu baxsaday. Intaa kadib Sam waxay u soo laabatay Tara, waxayna u sharxaysaa sababtii ka dambeysay inaysan is arkin muddo dheer. Sidoo kale Sam ayaa u sheegaysa in labadooda ay walaalo yihiin. Waxay ku oranaysaa labadeena isku aabe manihin, waxayna u sheegaysaa in aabaheeda uu
uu yahay Billy Loomis, waxaana hadda ka hor Billy Loomis dilay dilaagii maaskiga watay. sababta labadooda ay isugu xirnaayeen waa sababta aabahooda uu uga tagay. Tara aad ay uga naxaysaa markii ay maqasho dhammaan hadalladaasi, waxayna u sheegaysaa inay tahay walaasheeda ka weyn. Tara waxay ka dalbanaysaa inay ka tagto iyada. Sam aad ay u niyad jabtay kadibna waa ay raali gelinaysaa. sidoo kale waxaa hosbitaalkii imanaya Ridge. Samna waxay ka codsanaysaa in xiriirkooda ay soo afjaraan. si kastaba ha ahaatee Ridge waxa uu ku adkaysanayaa inuu la sii joogo iyada. maalinta xigta Ridge iyo Sam waxay la kulmayaan nin lagu magacaabo Dawey Riley. Dawey waa nin khabiir ah, waxayna ka codsanayaan in 5 daqiiqo ay wada hadlaan. intaa kadib Sam waxay uga sheekaynaysaa dhammaan dhacdadii dhacday. kadib Dawey waxa uu sharxayaa habka looga badbaado mindida. wuxuu u sheegayaa in xitaa aan la aamini karin qofka aad jeceshahay. sidoo kale waxa uu ku oranayaa waxaa laga yaabaa in dilaaga uu yahay qof kuu dhow. intaa kadib waxay ka codsanayaan inuu caabiyo iyaga, laakiin isagu waa uu diidayaa. waxa uuna ku oranayaa horay ayaa la ii tooriyey 9 jeer. kadib markii ay ka tageen Dawey waxa uu wacayaa saaxiibtii, magaceedu waa Sydney. wuxuu uga digayaa dilaaga. sidoo kale waxa uu qoraal u dirayaa xaaskiisii hore, magaceeduna waa Jail. intaa kadib waxay ka tashanayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen dilaaga. Sam aabaheeda Billy Loomis waxa uu ahaa dilaaga asalka ah. fikir badan kadib Dawey ugu dambeyntii waxa uu go'aansanayaa inuu caawiyo Sam. qorigiisa ayuu soo qaadanayaa isagoo u cabaysan. Sam, Ridge iyo Dawey waxa ay soo booqanayaan gurigii Jad. Dawey waxa uu qof walba uga sheekaynayaa dhacdooyinkii hore ee ku saabsan Billy. wuxuu kaloo sheegayaa xiriirka ka dhaxeeya Billy iyo Sam. wuxuuna ku oranayaa Billy waa Sam aabaheed, waana qofkii dilaaga ahaa. Mindy waxa ay soo bandhigaysaa fikradeeda, waxayna sheegaysaa in dilaaga uu doonayo inuu sameeyo horudhac. qof kastana waxa uu bilaabayaa inuu midba midka kale ka shakiyo. ugu dambeynna Sam ayaa wax walba lagu eedeynaya. aad ayay uga niyad jabtay hadalka, way ka kacaysaa meesha, waxayna u cararaysaa gaarigeeda. saaxiibkeeda Jad ayaa u yeeraya balse waa ay ka cararaysaa. inta ay wadada gaariga ku kaxaynayso waxay maraayada ka dhex arkaysaa aabaheeda Billy Loomis, wuxuuna u sheegayaa inay iska dhiciso dilaaga. dhanka kale Julie waxa ay shanqar ka maqlaysaa guriga dhexdiisa. waxay gacanta ku qabsanaysaa mid kamid ah mindiyadii halkaa yaalay, iyadoo doonaysa inay ogaato waxa dhacaya. balse waxay halkaa ku arkaysaa wiilkeeda Weys oo guriga ku soo laabtay. kadibna guriga ayay ka baxaysaa si wiilkeeda Weys ay casho ugu keento. hadda guriga waxaa ku soo haray Weys keligii, iyadoo gaarigeeda sii wadata oo wadada maraysa waxaa soo wacaya dilaagii ayaa u sheegaya in indhaha uu ku hayo wiilkeeda Weys. Julie oo argagaxsan waxay gaarigeeda u soo kala firaynaysaa guriga, waxayna sidoo kale wacaysaa booliiska. sida ugu dhaqsiyaha badan Julie iyadoo gurigeeda u cararaysa waxaa ka hor imanaya dilaagii. mindida ayuu marar badan ku dhufanayaa, ugu dambeynna waxa uu dhigayaa dhulka. intaa kadib quweyskiisii markii uu dhammaystay Weys waxa uu arkayaa albaabkii weynaa oo furan. markii uu isku dayay inuu xiro waxa uu arkayaa dilaagii, wuxuuna isku dayayaa inuu iska difaaco dilaaga. dilaagii waa uu weeraray, ugu dambeyntiina waxa uu Weys dhuunta ka gelinayaa mindidii uu watay. sidoo kalena Weys halkaa ayaa lagu dilay. Sam iyo Dawey ayaa yimid goobta uu falku ka dhacay, balse booliiska ayaa u diiday in gudaha ay u galaan. intaa kadib Gail ayaa baabuurka ka soo deganaysa, waxay u soo dhawaanaysaa Sam si ay faahfaahin uga hesho. Jail isla markiiba waxay arkaysaa Dawey, aad ayna ugu farxaysaa aragtidiisa maadaama muddo dheer ay ugu dambeysay inay aragto Dawey. Sam waxay arkaysaa askarigii hosbitaalka oo banaanka jooga, waxaana laga rabay inuu ilaaliyo Tara. isla markiiba Sam waxay ku baraarugtay in walaasheeda ay halis ku jirto. gaarigii ayay soo wada fuulayaan Sam iyo Dawey si ay uga gaaraan hosbitaalka. dhanka kale Tara waxay daawanaysaa TV-ga hosbitaalka, waxay maqlaysaa shanqar iyo qof ku qaylinaya fadlan i caawiya, balse qofkaasi cidna uma jawaabayso. Tara iyadana aad ay u argagaxaysaa, waxay fuulaysaa wiljarka wayna soo dhaqaaqaysaa. xafiiskii waxay ku arkaysaa askari dhintay oo dhulka yaala, iyadoo aad u naxsan waxa ay ku dhuumanaysaa qol u dhowaa. waxay wacaysaa booliiska isla markaana waxaa soo galaya Ridge, laakiin Tara ayaa moobilkeeda ku tuurtay iyadoo u malaynaysa inuu yahay ninka dilaaga ah. Ridge markaa ayuu u sheegayaa in saaxiibtiisa Sam ay halkaa ugu yeertay isaga. isla markiiba dilaagii ayaa gadaal kaga imanaya, isagoo la dagaalamaya Ridge. Tara ayaa isku dayaysa in halkaa ay ka baxsato, waxayna ku dadaalaysaa sidii ay uga baxsan lahayd dilaagan. laakiin dilaagii waxa uu wacayaa Sam, wuxuuna Sam ku oranayaa waa inaad kala doorataa walaashaada ama jaceylkaaga. Sam waxa ay dilaagii ka codsanaysaa in labadoodaba uusan dilin, balse isagoo u sii socda inuu dilo isla markaaba waxaa imanaya Dawey iyo Sam. Daweyna waxa uu isku dayayaa inuu toogto dilaaga. wuu baxsaday dilaagii halka Tara iyo Ridge ay badbaadeen, balse dilaagii ayaa mar kale waxa uu soo weeraray Dawey. markan Dawey ayaa ka adkaaday dilaagii, waxa uuna tooganayaa 5 jeer. intaa kadib dhammaantoodii waxay soo korayaan wiishka markii laga reebo Dawey, wuxuuna doonayaa inuu ka taqaluso ninkan dilaaga ah. wuxuu si lama filaan ah u qabtay dilaagii. intaa kadib dilaagii ayaa ka faa'iideysanaya, wuu mashquulinayaa oo mindi ayuu ku durayaa. ugu dambeynna halkaa ayuu ku dhimanayaa Dawey. Jail ayaa maqlaysa
maqlaysa warka waxayna imanaysaa hosbitaalka. Way ooynaysaa markii ay maqasho in la dilay Dawey. Daqiiqado yar kadib Sydney ayaa timid, waxayna dejinaysaa saygeeda xaaskiisii labaad maadaama uu ka dhintay. Tara waxay cafinaysaa walaasheeda Sam, labadoodana waxay go'aansanayaan inay ka baxaan magaalada si ay uga fogaadaan dhibaatooyinka dhacaya. Sydney ayaa u imaanaysa iyagoo doonaya in ay baxaan, waxay u sheegaysaa inay u dhameeyaan dilaagan dawataagan iyaga. Sam waa ay ka diidaysaa waxayna go'aansanaysaa in ay baxaan. Intii aysan bixin ka hor Sydney waxa ay jeel u sheegtay inay bixi rabaan Sam iyo walaasheeda. Sam, Reggie iyo Tara waxay raacayaan gaariga, laakiin iyagoo wadada sii maraya Tara ayaa weynaysa daawadeeda naqaska ee muhiimka u ah. Waxay soo xasuusanaysaa in dawo kale uu u yaalo guriga Amber. Intaa kadib ka hor inta aysan sii bixin waxay go'aansanayaan inay sii maraan guriga Amber. Dhanka kale Amber waxay xaflad ku dhiganaysaa gurigeeda. Dhanka hoose ayay u soo deganaysaa si ay khamri u soo qaadato. Laakiin Mandy ayaa u sheegaysa in kaligeeda aysan halka u bixin maadaama dilaagii uusan lahayn wax naxariis ah. Muddo kadib Jad waxaa loo soo dirayaa fariin qoraaleed. Gabar ayaana u sheegaysa inay kula kulanto meel gaar ah. Intaa kadib habeenkii Jad waxa uu soo baxayaa goobtii loo soo tilmaamay, laakiin halka cidna kuma arkayo. Wuxuuna go'aansanayaa inuu iska soo laabto, balse dilaagii ayaa ka soo baxaya meel lama filaan ah. Waxa uuna mindida lugta kaga duraya Jad. Intaa kadib Jad waxa uu damcayaa inuu cararo, balse dilaagii ayaa qabanaya oo dhowr jeer ayuu mindida ku dhufanaya. Jadna halka ayuu ku dhimanaya. Dhanka kale Sam, Tara iyo Reggie waxay imanayaan guriga Amber si ay uga soo qaataan dawadii naqaska. Markii ay guriga yimaadeen Amber waxa ay soo gabagabaynaysaa xafladii. Dhanka kale Mandy waxa ay daawanaysaa TV-ga. Si kadisa waxa gadaal kaga imanaya dilaagii, wuxuuna bilaabayaa in weerar uu ku qaado iyada. Sam waxa ay maqlaysaa qeylida Mandy, waxayna u soo cararaysaa si ay u badbaadiso Mandy. Ugu dambeyntiina waa ay badbaadinaysaa. In yar kadib Amber iyo Tara ayaa halka yimid, waxayna ku eedeynayaan in Reggie uu yahay qofka dilaaga ah. Reggie ayaa soo baxaya waxa uuna sheegaya inuu ka soo baxay dhismaha hoose. Isla markaa Dave ayaa timid iyadoo gacmaheeda ay dhiig ku halaysan yihiin. Kadib dhammaantoodii waxa ay Dave ku eedeynayaan in iyada ay tahay qofka dilaaga ah, balse waxay oranaysaa anigu dilaama ihi. Amber ayaa isla markiiba tooganaysa Dave iyadoo ku eedeynaysa in ay tahay qofka dilaaga ah. Dhammaantoodiina aad ayay uga argagaxayaan arrinkan. Qof walibana waxa uu bilaabayaa inuu ka cararo. Reggie waxa uu gacanta ka qabanayaa Sam, wuxuuna ula cararayaa dhanka iyo dabaqa hoose. Reggie waxa uu Tara ku eedeynayaa in ay tahay dilaayada kale. Sam intaa kadib waxa ay ka quusanaysaa walaasheeda Tara. Dhanka kale Jail iyo Sydney waxay imanayaan gurigii Amber iyagoo hubkooda sita. Labadooduna waxay damcayaan in gudaha ay galaan. Amber oo iska dhigaysa qof la soo tooriyeeyay waxa ay ka soo baxaysaa albaabka gurigeeda. Isla markiiba waxay bilaabaysaa inay toogato labadooda, balse Jail ayay caloosha kaga dhufanaysaa rasaasta. Amber isla markiiba gudaha ayay ku laabanaysaa. Inkastoo Jail ay dhaawacan tahay, waxay ku amraysaa Sydney in ay gudaha gasho oo ay soo disho Amber. Markii ay dhowr saacadood raadinaysay ugu dambeyn Sam waxay heshay walaasheeda Tara iyadoo ku xiran mid kamid ah qolalka, laakiin waa ay ka labalabaynaysaa inay ka furto xaraga iyadoo ka cabsanaysa. Intaa kadib Sydney ayaa soo gashay guriga iyadoo raadinaysa dilaaga. Iyadoo raadinaysa ayuu dilaagii soo wacaya, wuxuuna u sheegayaa inuu yahay dilaaga labaad. Si kastaba ha ahaatee Sydney hadalkiisa waxba kama soo qaadin, waxayna bilaabaysaa inay toogato albaab waliba. Kadib xabadii waxay ku dhacaysaa lugtii Reggie. Reggie albaabka gadaashii ayuu ku dhuumanayaa, wuuna isoo dhiibayaa isagoo dhaawac ah. Waxaana la ogaanayaa in Reggie uu yahay gacan ku dhiiglaha. Ugu dambeyn like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. Mahadsanid.